tobankaas uga imaanaya islaabka uga imaanaya intaas buu markaa kadib qaadaya soo xisaabeynaa marka xisaabeynaa beamku wuxuu qaadayaa self weightkiisa waxa la dhaho self weightkiisa waa kow labo wuxuu qaadayaa waxa la dhaho brick wall ama bricks load wuxuu qaadayaa brick load sidoo kale wuxuu qaadayaa islaabka loadka uga imaanaya culayska hadaayatu islaabku waa 14 kaas oo horaan soo xisaabinayba iyo loadka islaabka uga imaanaya saddexdaas buu qaadayaa loadka islaabka uu qaadayo waa soo helnay laakiin waxaa naga dhiman self weightkiisa iyo waxaa naga dhiman muxuu ahaa brick wall uu qaadaya marka intaana soo helin self weightkiisa waxaan rabnaa inaan assume gareeno size-ka beamka waa assume gareynaa size-ka beamka uu noqonayo waa assume ku sameynaa waxaan leenahay beamkan size-kiisu halkaan ku qoranaa waxaan beamkan size-kiisu wuxuu noo yahay waa beam 1 waa t beam 1 tiidu maxay tahay waa typical weeye macnaha floor 1 floor 2 floor 3 waa isku mid ma bedelayo size-kiisu waxa weeye 200 oo lagu dhiftay 600 size-kiisu waa intaas size-kiisu intaas baan ku assume gareynaa shaqadan gelinaa marka self weightka waxaa lagu helaa self weightka beamka waxaan ku helanaa formula yar buu leeyahay waxaa lagu helaa size-ka beamka hadaayata aan qoranay oo lagu dhuftay 24 maxay tahay waa density ama unit weight-ka of concrete mar walba ay wana maskaxda ku haysaa 24taas marar badan baa adeegsanana waa inuu qofku muxuu ahaa dushkaya marka qaar koodna waxaa lagu dhuftaa partial factor of safety waa inii sheegayo qofka engineerka mar walba wuxuu muxuu ahaa focus ka saaraya waxa weeye sheegani safety-gu uu leeyahay laakiinse hadda ku dhufan mayno waxaan ku dhufanaa waxa weeye kaliya size-ka beamka waxaan ku dhufanaa 24 kan maxaan ku helanaa marka waxaan ku helanaa self weightkiisa brick wall-ka marka iyada maxaa lagu helaa brick wall-ka waxaa lagu helaa hadda self weight-ka aan xisaabino self weight-ka xisaabinaa si shaqadu ka horeyso self weight-ka waxa leenahay size-kiisu muxuu ahaa 200 iyo 600 zero waa millimeter bay ahayd waxaan ka dhiganaa meter baa ka dhignaa 0.2 oo lagu dhuftay 0.6 oo lagu soo dhuftay 24 leenahay 0.2 oo lagu dhuftay 0.6 ka muxuu yahay waa size-kii beamka haddii ay tahay zoom gareenay oo lagu dhuftay 24 oo maxay tahay weight-ka concrete-ka waxa weeye waa 2.8 waxaa noo soo baxay 2.88 kilonewton 2.8 ka muxuu yahay waa self weight uu leeyahay beamka uu leeyahay labo waxaan rabnaa xisaabino weight kale uu qaadayo data la sheegay waa brick wall waa derbiga wuxuu muxuu ahaa wuxuu qaadayo derbiga waxaan ku helanaa iyada waxa weeye 0.2 muxuu yahay waa thickness-ka derbiga oo thickness-ka derbiga bana 0.2 buu leeyahay
oo lagu dhuftay 20 waa unit weight-ka ama density-ga waxa weeye p-ka oo lagu sii dhuftay maxaan ku dhufanaa 1.4 oo ah partial factor of safety maxaan ku dhufanaa partial factor of safety 0.2 haddana waxaan kusii dhufanaa height-ka height-ka see loola soo baxaa height-ka laftigeeda waa la soo baxanaa oo height-ka maxaa ula soo baxanaa gurigeena height-kiisu waa imisa gurigeena height-kiisu waa 3 sama 3 buu loo yahay height-ka guriga ama height-ka dhammaan gurigu waa 3 buu loo yahay waxaan ka garanaa inta beamka soo laalaada beamku markuu islaabku saan yahay beamkeeni waa kana in baa soo laalaada soma intaas soo laalaada maadaama uu loo yahay 0.6 uu loo yahay waxaa ka jirta islaabka intuu muxuu ahaa thicknesskiisa ka jirta islaabka thicknesskiisu waa 0.15 0.15 waxaa ka jirtaa 0.6 0.45 0.45 45 kan maxay marka waa markii laga jaro thicknesska islaabka markii laga jaro weeye intaas inoo soo baxaysa intaas baa inoo soo baxaysa marka 3da maxaa ka jirnaa marka height-ka guriga waa ka jirnaa marka 0.45 maxaa ka jirnaa height-kii baa ka jirnaa maxaa noo soo baxay marka waxaa inoo soo baxaya 3 waxaan ka jirnaa 0.45 waa 2.55 maxaa noo soo baxay marka height-ka 2.55 baa inoo soo baxaya 2.55 marka maxaa leenahay waxaan ku dhufataa waan dhahanaa waxaan ku dhufataa 20 oo muxuu ahaa thicknesska derbiga oo lagu dhuftay brick-ga density-giisa ama unit weight-kiisa of brick baa lahaa oo lagu dhuftay 2.55 oo lagu sii dhuftay partial factor of safety oo ah 1.4 intaa waxaa noo soo baxaa wuxuu yahay brick wall 0.2 oo lagu dhuftay waxaan ku dhufananaa 20 waa meesha unit weight-ka oo lagu sii dhuftay 2.55 oo lagu sii dhuftay 1.4 wuxuu qaadayaa culayskaas waxaa weeye 14.288 oo maxay tahay brick wall iskugu kayda dar marka total load isoo saar marka total load isoo saar total load waa maxay marka total load waa maxay waa peakska oo lagu daray self weight-ka oo lagu sii daray islaabka intaasaa wuxuu qaadayaa beamkan intaasuu noo qaadayaa maxaan leenahay beamka marka intaasuu noo 14.288 oo brick wall-ka noo soo baxay oo lagu daray 2.88 sorry 14.28 oo lagu daray 2.88 maante oo lagu sii daray 14kii aan haysanay oo lagu daray 14kii oo islaabka intii uu dhanka ka qaadaya aan haysanay waa intee 31.16 culays wuxuu qaadayaa 31.16 oo markii dhammaan culaysadii la isku daray waan usoo laabanaa waxaan aadaynaa marka waxaan leenahay 31.16 culays dhan ayuu qaadayaa 31.16 marka waxaan rabnaa mar walba halkaana maxay qaadaysaa waxay qaadaysaa waxa weeye waxaan leenahay
14